dadkii soo duceeyay waa mahadsantihiin leh ducadii waa lagu fiicnaaday alxamdulilah. waqtiga iyo waayaha ayaa sanado badan ciilay. shalayna waxa uu ahaa qof aan maskaxdiisa taam ahayn, dadkuna ay iska hareer maraan. waqtigiisa ugu badan waxa uu ku bixiyey xasuusaha jaceylkii noloshiisa mugdiga geliyey. dhibta iyo rafaadka marna laguma waaree, waayihii mugdiga, xasuusta iyo hadal la'aanta. waxaa maanta bedelay rajo soo iftiintay. rabbi ayaana u aqbalay ducada malaayiinta qof ee daawatay qisadiisa oo ahayd mid leh dareen xanuun badan. xasuusihii ugu wanaagsanaa ee uu dib u helay 35 sano kadibna waxa ay noqdeen inuu cod dheer ku akhriyo kalaamka alle oo uu yaraantiisii bartay. bismillaahi raxmaani raxiim. tabad yadaa abii lahabi wataba maa agnaa canhu maaluhu wamaa kasaba سيصلى نارا ذات اللهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. محمد نور آدن oo ku magac dheer Adeera inta badan ma ahayn qof dadka la hadlo, wuxuuna dadka marka ay la hadlaan ugu jawaabi jiray iska soco qeyr ayaad heli iyo qeyr Allah noo keeno. Adeera hadda uu caafimaadkiisii dib u siiyay Allah, waxa uu go'aansaday inuu iska cafiyo carfoontii cunada darteed uga go'ay, taasi oo aan weli la helin xiriirkeeda iyo halka dunida ay uga nooshahay. أنا مجايج محمد نور آدن قابله waxaan ku dhashay kaban alxamdulillaah ani waa reestay waa roonya hadda xaaladda ka war qeyr way ani waa rafaadsana jawaan la iska watay hadii ilaahay bakaad faraha ka bahiye wana uslaaye faraha haduu ka bahay bas way gabartii igu horeysay kabanaa lagu jeclaaday jaceelkeed waa la alfan waaye nin kala iska helay mar hore oo bil'aan ka dhigan yahay maxaa maadaama aan fiicnaaday waan iska afiyay gabartii oo la jeclaa oo arfoon ahayd waa la afiyay dadka Soomaaliya waa mahadsantihiin Allah idin barakeeyo haddana garab soo siiya. caafimaad qab wanaagsan, deganaan iyo xusuuso cajiib ah ay durbaba kala kulmeen maamulka xarunta Dr. Xabeeb ee Kismaayo oo door weyn ku leh daweynta iyo daryeelkiisa. waxa ayna sheegay in xaaladiisa jireed iyo maskaxeedba ay aad u wanaagsan tahay, balse waxay ku taliyeen in laga ilaaliyo dib u xasuusinta noloshiisii hore. 3 way 4 way 5 way 6 way 7 way 8 way 9 way 10 kow 2 way 3 way waka 3 iyo 10. jaceylkii carfoon ka hor Adeera waxa uu ahaa beerley tacabfalata, qof rajo wanaagsan ka leh dunida, balse 30 sano oo uu xanuunsanaa ma tabcan wax hanti ah. maanta uu Rabbi dib u siiyay miirkiisana waxa uu hanti ka haystaa 13,000 oo shilin Soomaali ah, taasi oo ahayd waxa kaliya ee aan ka helnay juwaankii qashinka ahaa ee uu dunida ka ilaalsan jiray muddo badan. dadka Soomaaliyeed ayuuna maanta garab weydiistay isagoo miir qab ah, waxaana loo sameeyay akoonno iyo lambarro ku samaysan magaciisa Maxamed Nuur Aadan. in jaceylku dhabi yahay dhuuxiyo lafaha dago, qaar baa dhibtiisiyo dheeldheelba moodee, maad arag xaqiiqada marka wacadka uu buro dhib jaceylku leeyahay. Ilaadan Maxamed, Universal TV, magaalada Kismaayo.